كان maanta waxaa ku tartamay 3 xisbi oo kala ah xisbiga Umar bin Khadaab xisbiga Xalane iyo xisbiga Al-Huda dhammaantoodna waxa loo muujiyay taageero aad iyo aad u badan oo dhan walba ka socto maanta inta ay socotay codeynta waxa ay maamulka dugsiga u asteeyeen in ay codeeyaan 165 arday oo ka kala socota fasal walba ee iskuulka kaasoo ka kooban 12 fasaladood halkaasoo fasal walba ay ku qaateen min 15 arday inta codeynta ay socotay waxa codeeyay 163 qofood waxaanan codeynin 2 arday oo ah Abdullahi Maxamed Ali oo dhigta fasalka 6aad iyo Cabdinuur Maxamed Ahmed oo dhigta fasalka form 3 guud ahaan intii soo hartay ee 163 arday kale waa ay codeeyeen doorasho qof iyo cod ah ayaana halkan ka dhacday saddexda kaalinka koowaad kaalinka labaad kaalinka saddexaad waxaan ka bilaabaynaa ardayda kaalinka saddexaad ka gashay doorashada maanta waxaa kaalinka saddexaad soo buuxiyay xisbiga Xalane oo keensaday 42 cod waxaan dhammaan ardayda ka codsanaynaa maadaama ay musharaxiin ahaayeen ay tartameen in ay niyad dhis u sameeyaan ay gebi ahaantooda si wada jira ardayda ay ugu sacbiyaan xisbiga Xalane aad ayaad ugu mahadsantiin mida kaalinka labaad waxaa galay xisbiga Umar bin Khadaab oo keensaday 44 cod kaalinka koowaadna waxaa ku soo baxay oo nasiib u yeeshay in uu noqdo hoggaanka midowga ardayda iskuulka Ubaya bin Ka'ab Primary and Secondary School Kuwait xisbiga Al-Huda oo halkaas ku keensaday 77 cod waxaan ka rajaynaynaa xisbiga Al-Huda in ay ka soo bixi doonaan xilkii loo igmaday ee loo magacaabay oo ah guddiga midowga ardayda iskuulka Ubaya bin Ka'ab waxaan ka rajaynaynaa in ay ka shaqayn doonaan ayna haqabtiri doonaan dhammaan baahiyooyinka ardayda ha ahaadaan dhanka waxbarasho ha ahaadaan dhanka ciyaaraha ha ahaadaan dhinac walba oo arday kale uga faa'iideyn karo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan mar kale idinka codsanaynaa in aan sacab loo wada dhan yahay aan u muujino xisbiga guuleystay ee Al-Huda